بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مدحونا شريف آدي آد وماسية هي آدي آد أيو وفاهي حقائق أما حقيقة ضبطها ما أنت كجرت دلكين وحمهم كوحيين وحلس لأوجيها إن الأسبوع العليا معنا بدل ما سمينا لكن إن لا فهم أنت وضد اللي صار مري وحي للشاقة يودن أنه haddii aan hadday xukun jacayl tahay iyo haddii tala far adeegi tahay iyo madaxweynahan oo ka hadlay dhowr mar horena waa ka hadlay annagaaba soo dhignayba geedda annagaaba muxuu ahay diyaar u ahayn wixii shalay annagoo aan marka xukunka iyo talada uga tagnay xushmadda dadka codkiisa aan u hayn rabitaanka dadka Soomaaliyeed codka dadka Soomaaliyeed ilaalinta dadka Soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen oo waxaanaan sidaanaan dawladnimada noocaan ahaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa xukunka in la isu badbedelaan rabnaa siyaasaddu inay mid baa tala badan ku jirta tahaan rabnaa wix nidaam federalism oo mid qarankan uu naga dhaxeeyo midka kalena shu'uuntayna hoose aan u kala dhaqanaan rabnaa dadka hadalladii ay jiraahdeen ayaa annagu aan ku daba joognay aayado quraan maaha xeerarka iyo nidaamka dadku ay degsadeen ay ku heshiiyeen laakiin waa ognahay xeer wiligan uu noo deganaa jiray haddii uu shaqayn waayo ama dhibaato ka timaado intii degsatay intii isku timaaday tira xeerkan waana anfici waaye dhibkaan uu keenay mushkiladii aan rabnay inuu xallin waaye warsaan hal la yeero laakiin waa tuurayna bedelna uma hayno laakiin asiga magaciisa intaan sheegnaan annaguna sidaan rabnana waa ka yeelina waxyaabaha muxuu ahay dhibaatadu ay ka jirto waaye horeyaana loogu soo arkay dawladdii dalkan ka jirtay markay xeerarkii iyo nidaamkii iyo shuruucdii iyo rabitaanka dadka iyo dareenka dadka ilaalin weyday ayadoo midaan maanta haysana ka xoog badan oo ka awood badan oo ka magaciisa badan ay duntay ay shaqay weyday marka waayo aragnimo aan u leenahay da'deedii aan joognaa waa soo joognay waa soo aragnay wixii shalay aan ku qaladnay mar kale inaan ku qaldanno ma rabno dawladeenna waa dawladeenni haddaanan dawladnimo rabin oon qaranku inuu dhismo aanan rabin dawladdan maanta waxay samaynaysay walax kasi dhib badan aan samayn lahayn annaan samayn karnay weliba laakiin waxaan u samayn weynay oo gacnaha naga dabraayay xeerka iyo qaanuunka jira rabitaanka dadka inaan dhowrno oo annagu aan adeegayaal ahayn oo dadkuna adeegsadeen ii soo qaba shaqadan bes waa mahadsan tahay inta iska dhigay caliga ii soo qabanaya maalinta dambena haddiina la yiri inaan u hogaansano qadan waxaan ka hadlaa marka inaan rabo intii dawladnimada Soomaaliyeed la soo dhisay arta laga soo bilaabay ilaa maanta aan joogno waa dhutinayna waxaan la dhutinaynay Soomaaliland naga maqan midnimadeena ciriiri ku jirta Soomaaliland naga maqan war walaalihi hal la jiriyo oo hal la waxeeyo madaxweyne Shariif waqtigu madaxweynahayna waa ogtihiin juhdi uu ku bixiyay aniga intaan taladahay waa ogtihiin juhdi aan ku bixin mar walba dadka Soomaaliyeed aan rabitaankooda ka turjumayn oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii la isku soo noqdo rabeen annagoo Soomaaliland sida uga dhutinayna maanta marka kuwa kale in la sii cirdeeyo oo ay sii baxaan oo qaarkood aad maqlaysaan saxaafadii aad tihiin wax ay dadka ay ku hadaaqayaan dawlad dhexe yaan diidnay shalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federalismka maanta nidaamkii federalismka waa noo shaqeylaa waa anfici laayay co-federalism yaan ka wardoonayna waa sii durkeena centralized government dawlad dhexe oo xoog loo lagu midaysan yahay ahay wixii dhacay iyo dibkii dhacay ee kala aamin bixi dhacay wixii inta laga soo kabanay waxa la nidaam federalism oo danahana gaargaarka ah aan kala leenahay kala maamulanayno waxa naga dhaxeeyana aan dad noo maamulo u wada dirsanayna aan samaysano tiya socotay tiya dadka qaarkiis maanta waxa ka soo yeerayo in ay ka sii niyad jabayaan oo ay baleeyin maya gadaalan u sii durkaynaayo co-federalism wax la yiraahdo confederation wax la yiraahdo aadayna federalism ku shaqay waay maxaa ku soo xigo goon isu taagan aadayna ku soo xigta maalinta dambana hal jaran ka dhiman ninka dadka dareenkaas muujinaya confederalism ama confederation inay aadaan hal jaranjara u dhiman hasha jaranjaro u dhiman waxa waa goon isu taag waay wax ka sii dambeeyo oo awood dawladnimo baahsan ah confederalism ka sii dambeeyo malaha federalismkii oo la sii dhimayo la sii kala dhimayo la sii kala waxeeyay wana waaye confederalismka
marka waxaan rabnaa meeshaasaan maanta marow haynaa weli ka qabashaan leenahay dadku waa dad Soomaaliyeed shalayba waa la isku soo noqday dalkan ayadoo colaadi ka jirto la kala qaybsan yahay la isdilayo dadaa inta safray imaamadooda xirtay oo baxay yaa dadkii ay la dirirsanaayeen meelihii ay deganaayeen iyo deegaanadooda ugu tagay yar walaalayaal aan heshiino meeshaasi ka soo bilaabataas la is aqbalay maanta macquul ma aha beesha caalamka waxaan leenahay waa nasiib darro in meesha ayadoo lagu kala maqan yahay meeshii ay dowladda ay kala hadli lahaayeen oo dadka kale ay kala hadli lahaayeen markuu madaxweyne Shariif oo Kismaayo u socday Kismaayo muxuu ahaa riwaayad la soo daawanaya meesha ma ahayn oolin waxaa ka mid ahayd ajendaha ugu weyn oo madaxweynaha iyo aniga iyo dad kale oo badan oo Soomaali muhiim u socdeen in hoggaanka iyo maamulka iyo institutionka Jubbaland jiro la dhageysto dareenka ay qabaan wixii laga daaway kara wixii kana oo la isku soo celiyo xayndaabkii dawladnimada lagu soo wada noqdo laakiin marna muraadka ma ahayn in muxuu ahaay la sii waxay in la sii kala tagay la sii waxay boogihii hore intii la dhayi lahaay in kuwiina la danqiyo kuwa cusubna daqarro cusubna dadka la gaarsiiyo hadda la sii waxay waa nasiib darro maanta waxay taagan tahay marka maxaa danno ah waxyaabihii dawladdu ay ballan qaaday maxaa ka socday dawladdu intay ka baxday hoggaanka ugu sarreeyo qoladan beesha caalamka maanta ay la shireenay u tageen magaalada London lagu shiray wax la yiraahdo comprehensive security arrangement lagu soo heshiiyay amniga dalkan qaabeyntiisa wax la yiraahdo lagu soo heshiiyay dad badan diidanay dad badan la xumeed dad badan la qaab darneed dad badan qabay sidan si ka fiican oo wax loo qaabeyn kara jiray laakiin iyadii xataa aawe tii markii la sameeyaan dhiilan war waxaana ka dhimanaha lagu daro ama meeshaana waxoogaa yar ay ka waxaysan tahay saan laga yeelo iyadii lama hayo aawe dawladdu waxay noo sheegtay tubaha wax la yiraahay sameysay tubta siyaasadda loo dhan yahay kamid ahayd wa siyaasadda yaa u dhan hogaamiyaasha ama madaxda dawladda iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeeya ma siyaasadda u dhan meela maamul goboleed doorasho laga gaar hadii wasiir ha la geeyo xagga mid kale laga rabaa leeyahay nin wasiir ayadana laga soo dhiso maxaan ku iraahdaa xagga guddi loo rabaa wiilasha xafiisyada ka shaqeeya muxuu hal magacaabay ha loo diro siyaasadda aniga ma u arkay inay sidaas tahay dadkaas sharaf ay leeyihiin wasiirada iyo golaha wasiirada dad ku jira dad sharaf leh wiilasha xafiisyada ka shaqeeya dad sharaf leh laakiin waxa waaye aaliyad ama tool meeshii saxdeen aan loo adeegsanaynin waaye Soomaalidii hore maxay ku maamaahi jirtay mudac iyo maliindo midba meel ku roon mudacuna waxba mudaa dadkii baadiye joogi jiray yaqaan ahaanta marka la tolayo mudaa maliindadana waxbay gooysaa mindi waay mudacu wax kuma gooyn karo maliindadana meelo qaarkood wax kuma mudi karto midba tool walba meesha uu leeyahay inuu aadaa la rabaa oo loo adeegsado siyaasadda loo dhan yahay dadaa u idman oo dawladda dhexdeedana dadaa u idman dawladda banaankeedana dadaa u idman dawlad goboleedyaa jiro xisbiyaa jiro bulsho rayadaa jirto ururo bulshaa jiro dad badanaa jiro dawladda ka tirsaneed dawladdu waa dadkaas dadka ajandaha siyaasiga dhabta inay ka gadda la rabo oo siday u rabta haddii si ka duwan loo sheego inay qaadato ay tahay tubta siyaasadda loo dhan yahay siyaasad loo dhan yahay shirkaasna waa u marqaati wixii Kismaayo ka dhacay waa u marqaati fariinta Puntland ka imaanaysa waa u marqaati galmudug waxa ka socda waa u marqaati waa midda aan sheegayno leenahay wasiira maamul looga dhigaa madaxweyne looga dhigayaa iyo maxaan ku iraahdaa guddiya loo magacaabaya xafiisyada wiilasha iyo gabdhaha ka shaqeeya loo dirayaa guddi ka ayo war xagee wanaag iyo wada jir iyo wax xooganoon wada leenahay oo wada ilaashano oo wada dhowrno xagee ku imaanayaan war dalka dadku ka dhaxeeya siyaasaddu dadkay ka dhaxaysaa dadkaani lama celi karo lamana hor istaagi karo loomana diidi karo inaa u diidina dhib unbaad sii kordhinay waxaan magac xumo iyo karaamo darro aan ahayn kama qaadayo qofka saas yeelo shalay shirka meeshaan ka dhacay khudbooyinkii laga jeedi iyo kuwa maanta laga jeedi ma raba inaan comment gareeyo waa dhageysanaysaan concernka xataa dadkaas beesha caalamka oo naga baxsan annaga ay hoggaanka ka muujiyeen dawladnimada ma aha muxuu ahaay qof iyo laba iyo saddex maaha wax la yiraahdo hoggaan wax walba siyaasadda loo dheeyahay hoggaanay rabtaa amnigu hoggaanuu raba waxaa soo haray dastuurka waxaan ugu maqaalaha in la yiri bisha June sanadka dambe dastuurku wuu dhamaanaya
waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inuu sheegno wax kasta oo qabsoomayahay weel ay ku qabsoomaan ay leeyihiin dastuurka weelkiisii ama infrastructure-kiisii waa kala qabyo weli dowlad goboleedyadu dadkii ay ku lahaayeen oo talada ahayd ilaa wixii in la isla ogolaadaa la rabaa dastuurka shacabka iskale waa heshiis shacabka iyo dowladnimada u dhaxeeya waay oo dowladda awooddeeda tilmaamayo oo shacabka awooddiisa tilmaamayo oo dowladda awooddeeda xadidayo oo shacabka awooddiisa xadidayo oo kala waxaynaya waa xamar dhexdiisa iyo maxaan ku yiraahdaa meelaha aan joogno miyaa kaligan intaan isu sheegno miyaan leenahay dastuurka waa kana waa qabnaa maya ma dhacayso war dalkan cadow leeyahay niman shabaab la yiraahdaa dowladnimada cadow u ah dowladnimada cadow kale yaan loo abuurin kala aamin baxyaan loo abuurin safka shabaab lagula jirayaan la kala jijibinin awoodda aan leenahay dowlad dhisidda aan ku soo meel intaan yaani maanta si kala dhantaalin kuwa badanaanba inaan ku soo kordhino u soo zaa'idin u baahannahay cudur daaray heli lahayd maamul goboleedyada maamulada la isku haysto maanta dhismahooda markii la joogo la iskuma qabsanin maamulada markii la dhisay haddii la isku qabsadana intaan baxnay oon dhex fadhiisanay oon habeenno ku dhaxnaan dadka soo barinay intaan dhegaysanay midna aflagaadeeyo midna ammaano mid naga gar qaato mid naga gar helo oon u garaawno intaba ayagoo laan dadka intaan soo dhagaysanay yaa maalinta dambe waxay wada leeyihiin inay samaystaanaan keen ayadoo dowladda Soomaaliya dowladnimada Soomaaliya carta gey maxaan ku yiraahdaa Imbagathi gey Eldoret gey Addis Ababa u celi la leeyahay yaa inta la soo qaadayaa la keenay dalka gudihiisa siyaasadda Soomaaliya dalkan go'aan looga gaaray dastuurka maanta jooga lagu sameeyay dowladda ugu horeysay gudaha lagu doortay madaxweyne lagu doortay ku meel gaarnimadii lagu waxay dowladda waxaan leenahay hadda koorna waa mar kale cod dheer ku leenahay ha sababin dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed inaad dibadda ka doontaan idinku ama kuwa idinka dambayn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaasi oo sidaas u ekaado ha sababayna waa laga yimiday meeshii shalay laga yimiday yaan loo noqonin taariikhda waxayna bare nin kastoo Soomaali ah oo cararay oo qof ajnabi ah ama cadow ha ahaada ama xabiib ha ahaade u tagay magan galay nin kaloo Soomaali ah ayuu ka cararay xataa haddii dadkeena maanta diasporada qurba joogta shalay markay dalkan ka qaxayeen iskama ayan qaxin dad Soomaaliyeed kaloo walaalahooda ay ku afiid ku diin iyo ku dadnimo yihiin ka qaxayeen qof hadduu marka maanta ajnabi aado waa u dirnay ogaada dowladda u dirtay mas'uuliyiinta maanta joogta u dirtay ayagaa ka celi karay hadhow eed qofkaasi ma saarayno qofkii mas'uulka ah sababtu ah qofkaasi inuu cararo ama ajnabi magan galo ama siyaasadda dibadda hal geeyo u yiraahdo yaa mas'uuliyaddeeda qaadayo waxaan rabaa qodobadaasi iyo waxyaabaha waxaa soo dhan marka hal waxba isku fuuqsanayo hal wax oo haddii fahamkiisa la isku raaco la meel mariyo isku fuuqsanaya jira waa maxay jawiga ama saaxadda siyaasadda in la furo la waasiciyo la ballaariyo siyaasadda in laga markaan siyaasaddu dadku ay ka hadlaan waxay dareemayaan inay leeyihiin inay wax ku leeyihiin laakiin markaan annaga qol inta isla galna aan ka hadalno maalan aniga xisbigan gudoomiye ka ahay madaxweyne Shariif xisbi muxuu ahay hogaamiye u yahay xisbiye kale fara badan oo maanta madallada ku midoobaa joogo kuwa aan madalladan ku jirinaa jiro xisbiyada gaargaarka aan leenahay annaga iyo inta nala xisbigaas xubnaha ka ah isla leh fikirkooda waay ma aha fikir Soomaali oo dhan ma aha inta isku fikir noqota xisbiga isla yeelata xisbiyada inta isku yimid haddana maxaa sabab fikirnahay waxaan ku kala duwanaa meel dhowdhaga kow lama saddex ma kala qaara haddana isku yimid isla gartay oo hadda madalladan samaystay kuwa kala ka maqan oo ama aanan waxa annagu aan isugu nimaday aan nala qabin amaba aan waxeen waana ogolnay raaliyan karnay ra'yigeena in laga duwanaado ra'yi kale la ag dhigto mid ka qurxan la keeno annaguna kuwii ra'yiga qurxan mar walba qaato ama keeno aan noqono in darona marka waxaan rabnaa afka iska qabasho ma gasho dadka saaxada siyaasadda waa in la abuuraa si kalsooni haddaanay kalsooni imaanin Jubbaland la arki maayo Puntland la arki maayo Galmudugna waxa ka soo baxay wax fiican ma noqonayaan kuwa kale oo maanta joogana ma sii fiicnaanayaan dadku waa inuu kalsooni qabaa waa inuu cadow ku arag hadduu ku arka xataa waa inuu kula hadli karo wax ku sheegi karo oo qabo
meel uu wax kugu sheegi karo iyo si uu wax kugu sheegi karo inay jiraan aad iyo aad u mahadsantihiin annagu waxaan rabnaa Soomaaliya la wada leeyahay dawladnimo la wada leeyahay tala la wada leeyahay taasaan daawada ka dhex aragnaa taasaan rabnaana in la helo haddii alla yiraa iyadaasaanan u taagana haddii alla yiraa maalmaha soo socda iyo usbuucyada soo socda bilaha soo socdana mar walba iyadaasaan u taagnaa doonaa tilaabo ka turjumaysaanan qaadi doonaa dadka mar kale kelmaddan waa isticmaalay waa ku celinayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee dowladda ay u tahay maragga ha ka dayso dhaqaale sida madaxweynuhu uu tilmaamay u yaallo kalsooni sida aan wada tilmaannay u taalo dhaqaalaha horumaray iyo maxaan ku idhaahdaa muxuu ahay reformaa la sameeyey jawigii lagu samey lahay ma taalo aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan leenahay waxaa waaye dadka mar walba siyaasaddu waxay ka turjuntaa rabitaanka iyo masaalixda dadka siyaasadda ha la furfuro dadkana ha loo turo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi shalayna su-aashaas waa la i weydiiyey annaga horta intaan joognay waana la dhaliili jiray laakiin dhaliisha ma diidi jirin hadda waxaa dhaliisha inay weyn tahay loo arkaayo waxay tahay nidaamkiyaa la dhaliilayaa shaksi ma aha madaxweyne xasan sheekh madaxweyne shariif madaxweyne farmaajo madaxweyne cali ma aha nidaamka dowladnimada waa horta waxa laga hadlay in la ogaadaa la rabaa oon la shaksiyadaynin wax annagu waxaan ka hadalnay waa nidaamka dowladnimada aniga waa lay dhaliili jiray on the record waa taallaa mas-uuliyiin waaweyn oo dalka xilal ka soo qabto ra-iisul wasaareyaal soo noqday oo wasiirra soo noqdayaa joogay madaxweynaha maantaa joogo wixii uu dowladdii aniga aan madaxweynaha ka ahay ka sheegi jirayna on the record waa taallaa marka laydama dhaliili jirin maahana farqiga waxa waaye dhaliisha maanaan diidi jirin dhaliishaa la diidayaa maanta meeshaan ku kala duwannahay intaas waay waxaan rabaa inaan ku daro dowladdu maa fursad siisaan dowladda fursadaan basiina ma annaga haysano dowladda inay toostaan rabnaa dowladda sida madaxweyne shariif hadda uu ka dhawaajiyey meel intaan fadhiisano gacmaha issaarana maan dhowranaa intay wax walba naga halaabayaan waxa aan leenahay war yaanay wax naga halaabin waaye waxa naga halaabeen ma ahan yaanay wax naga halaabin marka dowladda fursadaan siiyo haynaayo ra'yi fiican iyo waxa dhabtaa oo ayaga qaarkood been looga sheegoona aanay ogeyn yaan annagu publicly aan u sheego haynaa shakhsi ma aha waxa la haysto inay kala caddaataan nidaamka maanta ka jira ee dowladnimada ah wax badanaa ka khaldan inuu noo hagaago noo tooso weynaadaanaan rabnaa wuxuu yidhi reer baa waxaa la yidhi cunug baa dhul waa kala cararay markaasaa iyadoo la eryaa cunugii lala hadlaya laleeyahay war geed qabso intaan kaa daba imaanayna waa moogta ama kusoo gaarayne marka dhurwaagii uu hadlaa layidhi wuxuu yidhi waaba haddaan geed kula leexda iyo meelo qabsadaba yaaba waxna dhegaysanayo inaan ra'yi bixino inaan tala bixinaan rabnaa annagu markii fursadda la siiyey inaan ka hadla ma rabo markii fursadda la siiyey dowladda waxaan siinay talaan siinay xilka intaanan wareejin ka horna talaan siinay markii aan wareejinay kadibna talaan siinay mar kale waxaan rabaa saxaafadda u sheegayaa waa on the record waase adikaa haysaanoo ku noqon kartaan maalintii ra-iisul wasaaraha la magacaabay mowqifkaan aniga aan ka istaagay soomaaliya imaqal article la yidhaaho dheer hiiraan online iyo muqdisho muxuu ahay times iyo muqdisho muxuu ahay online iyo jowhar iyo kulli waa ku wada jiraa waxaan u doodaan u taagnaay baarlamaankaa guux waxaa ka dhaqmucdaa dowladda in la diido xukuumadda in la diido xukuumadda inaan la diidin wixii aan ka qoray waxaan ka ori waa la ogaa whatsapp groupaan intaan sameeyey oon xildhibaano badan ku soo darnaan dhexdooda dood ku galnay maadaama aniga dalka aan ka maqnaa markaas dibadda aan jiray dibaddaa jiraa dameer iyo nin fuulo waa daymaa iga deeqdo ee ayagay u taallaa hala raftaana maanan dhihine waxaan ka shaqey xukuumaddoo 105 xildhibaan ay mooshin taqadum oo horumar ay ka keeneen lama keeni karaba baarlamaanka waxbaa ka qaldan ay leeyihiin
yaa waxaas aniga aan aaminsanahay qayb inaan ka qaatay sababna aan weyn ka ahay in 200 jajar xildhibaan xukuumadda ay ansixiyaan xukuumadda waa la safnayn maantaan diyaar u nahay bannaanka u taaganahay inaan la safano مثلا على مساركي مدحوينها بونتلاند waa wada tagnay madaxweynuhu waa tagay wasiirro badan dawlad goboleedyada dhan madaxweyne shariif waa joogay aniga waa joogay madaxweynaha waa la wada joogay guddoonka baarlamaanka dhan waa joogay waa la wada hadlay maalintii hadalka aan labadeena waa fadhinay qaybaan ka ahaynay odayaynaan ka galnay meesha annaga wuxuuna sida hadda u yaalaan mugaas 7 bilood ayadoon la isku imaanin oon la wada hadlin oo madaxda dawlad goboleedyada qaarkood iyo dawladda dhexe aanay telefoon xataa aanay ku wada hadlin yaa madaxweynihii cusbaaye la doortay Saciid Dani oo wuxuu sababay in la wada fariisto waa la wada hadlay wax badan la kala eed sheegtay markii dib waa la isku yimiday qof walba meesh wuxuu ka qaray dalka hoggaan uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka fadhiyo isaga mas'uulka aniga iyo madaxweyne shariif dadkii yiriya cod dheer ku yiraan kamid asaa mas'uul dalka fursad aan siino madaxweyne Saciid Dani wuxuu yiri gogashaan waa furantahay hadii la sii joogaayo lagu wada tashanayo haddii dib loo ballamaayna mar walba waa furantahay in la isku yimaado la wada hadlo wax ka fiican oo muxuu ahaay hala tashado oo hala heshiiyo oo hala israaco haddii maalin kalaan ballan qabanayo oo yiraahdana muxuu ahaay ballantaas dambe uu qabanayo hala waxay diyaaran u nahay shalana u ahayn maantana u ahayn laakiin dee nasiib darro laba waxyaabood isma raaci karaan aniga inaan maanta baxo oon madaxweynaha aan soo arko lafsadeedu waxa jira daawo uma aha waxa jira waxa daawo ah ficil la sameeyaa daawo ah ficilkaasaan wada dhowraynaa annaguna haddii waxna lagu tuhmaayo inaan cod ku leenahay waa bixin waxa aan contribution keenaa baad inaan sheegno ma waxaad u maleynaysaan haddii aan meel aan dawladda inta ka gaarsiino codkeena ay madaxdu ku dhageysanaysaa haddii jirto inaan media imaan lahayn public imaan lahayn waanadu markay public timaado waana ma aha tan hadda annaga aan sheegaynaa waana ma aha waajibna saarnaay oo si kaloon u gudana aan wayna dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno waay waana waxay ahaydeen markaan hoos ugu sheegi karno oon dhihi karno maya madaxweyne saana ka roon maya ra'iisul wasaare saana ka roon maya guddoomiye baarlamaan saana ka roon aan dhihi karno markii saas dhawaayo laakiin waxa waxay taagan tahay Allahumma inni ballaq dadka Soomaaliyeed inaan u sheegnaan rabnaa wuxuu waa qaldan yihiin wadadii ku sax lahaayna ma taagna wadadii ku saxda in la soo istaajiyaan rabnaa maadaama aad ku sheegtay in garoonka diyaaradaha laga xilgay adigoo doonaya inaad ismaaciil tagto bal waxaad noo sheegtaa ujeedada dadka isweydiinaya macallin misaanki ayuu ka qaybgeli rabaa madaxweynaha mise arrimo kale ayaad u aadaysa mise kaa go-an tahay inaad ismaaciil أنا أمر هنا تأخذ قضية داس ما أنت ومحمد بايسنا معلم وكالة دورة تركيا دور النيس أجنسي لو ما لنا يا شريسين مدحلي ودن كاتفين شري واحد نو شيكتين إنا كور السوق وكوليشن إنا سميستين ما جرتا حب السوق وإسلاك جيحدين وبدأ ودورشة صوص عطا أبوال غير كليسان وبرشة اللوة داقي كتامياج مدحوين شريك بسم الله وما سنتين أنا قاركت إذا نوحي تهاي dalkan dawladdiisu waa burburtay xilliga la soo dhaafo waxa lagu soo waday dib u heshiisiin dawlad kasto iimaanaysay qorshaha koobaad wuxuu ahaa dib u heshiisiin walina waaya ujeedada laga leeyahay waxay ahaaday dadka Soomaaliyeed kalsooni inay dhex marto kalsoonidaasna lagu ku dhisanto dawladnimada kalsoonidii waa la dhaawacay mas'uuliyadeedana waxaan aaminsanahay inta ugu badan waxa iskale dawladda annaga waxaan u taaganahay kalsoonidaas dhaawacantay inay kabanto dadkan meesha waa yimideen waana ka tagayaan dawladnimadu inaysan meesha ka bixin sidii loo hirgelin lahay oo dadka Soomaaliyeed kalsoonideeda loo celi lahay taas anaga mashruucaynu ku qotomo waa mahadsantihiin su'aaluhu inta ay inoo ahaadeen